aan wax yar warbixin idinka siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee waddankeena. Tirada ilaa iyo hadda waa 60 xaaladood ee xalay aan idinka siinay warbixinta. maanta laabka aad ayuu mashquul u ahaa, marka waxaan bidaynaa caawan late inay soo bixi doonto ama berri subaxi insha Allah tacaala resultskii maanta intii la qaaday. xaaladda waa sidii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in dhaqaatiir badan oo ilaa iyo 8 cadadooda ay tahay nambarkooda uu yahay ay qaaday cudurkan coronavirus. dhaqaatiirta waa dadka ugu horeeya dagaalanka ku jira, waa dadkii xanaaneynaya dadka cudurka qaba. waxaa loo baahan yahay taxadar zaa'id inay sameeyaan. dharkii ay xiran lahaayeen marka ay qof ka shaqeeyaan loo yaqaanay protective gearka iyo okyaalihii iyo wax allaala wixii ka xakameynaya inuu cudurka u tallaabo waa inay mar walba ku dadaalaan. wasaaradda caafimaadka wax allaala wixii soo gaaro oo deeqa ama ay soo iibsato oo qalab ah waxay isku dayeysaa in isbitaalada dadka waaweyn qaabilaan inay wax ka siiso, in meesha lagu karantiinayo la geeyo, in yacni laga taxadaro dadkii daaweyn lahaa dadka xanuunka qabeedkan cudurka. ilaahay ha naga yasiro cudurkan aafadiisa iyo dhibkiisa. weli waxaan siinaynaa walaalaheen Soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan taxadarkooda inuu sarreeyo, in ma aragta shirarka la iska yareeyo, in la kala dheeraado oo social physical distancing la sameeyo oo ilaa ay ugu yaraan 2 mitir la isku jirsado, inaanan meelaha buuqa la isugu tegin, inaan yacni barnaamada iyo meelaha ciriiriga la isugu tegin. cid walba oo aan dan degdeg qaas lahayn si loo xakameeyo cudurka. cudurka waa halis haddii uu gaaro maaragta haddii uu bulshada ku fido, walow dhimashadiisa ay markii la fiiriyo ka yar tahay cudurro badan oo saamafida, haddana khatartiisa iyo fididiisa aad u weyn. waxaan ku talinaynaa in la ilaaliyo dadka xanuunada gaarka ah yacni dheeraada qaba, dadka waayeelada ah iyo dadka ma aragtay difaacoodu yar yahay, in aad looga taxadaro, in laga ilaaliyo bulshada iyo familka intiisa kale. in ma aragtay qofka haddii uu isku arko calaamadihii xanuunka ee dhowr jeer lagu xilxiliyeen uu soo wacdo nambarka 449 si wacyigelin loo siiyo. qofkii u baahan markaas in yacni test lagu sameeyo oo laga baaran markaas lagu waaliyo inuu soo raadsado meesha baaritaanka uu tago oo laga qaado. mar labaad waxaan idinku dardaarmayaa dhammaan in laga taxadaro cudurkan sidii loo yareyn lahaa, wacyigelin la sameeyo, bulshada qaybaheeda kala jaadka oo dhan ay ku howlanaadaan sidii looga hortegi lahaa